Isagu waa Cali, beenaalihii ku soo xerogeliye tobanaan gabdhaha, qoonda lacag ah iyo sidoo kale xoolo. Inkastoo aadamaha ay dhaqdhaqaajiso dhuunta, qaarkoodna ay meelo xun ugu dhacaan, Cali waa qoysaar ka mid ah qoysarada ilaalsha xoolaha, khaasatan baadiyaha. هذا ما سنتي دمانتينا رنانتي ما أنت كيس هذيك ما دي عملنا ديار مهين لكن وحدك ما دينا وقت daawad waxaan ka codsanaynaa si naxariisi ay ku jirto fadlan like noo saar muuqaalka qaybta hoosena subscribe noo dheh nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadan halkan ku xiran. Cali ayaa sheekadiisa kula wadaagaynaa oo xaqiiqo ah. Cali waa wiil ku nool wadanka Sweden, khaasatan baadiyaha Sweden. Wuxuu gabdhaha u badan ku soo xerogeliyay lacag badan, taasi oo gabdhaha dhamaantood ka kala yimaadeen wadamo kala duwan. Laakiin ogow, beentu si kastoo ay been u tahay, beentu si kastoo ay u badan tahay, beentu si kastoo la isku dul saaro, marnaba lagama yaabo inay noqoto mid run ah. Beenta ma gaari karta xaqiiqada runta, waayo waa been. Cali ayaa barnaamijkiisa iyo sheekadiisa taxanaheed waxay ku soo dhamaatay been iyo lacag abuur iyo sidoo kale in muuqaal isla markaana oo dadka dunida oo dhan isku baro caanimana uu ka raadsho. Tan ayaa noqotay mid dadka oo dhan ay aad uga niyad jabeen. Gabdhihii ugu dambeeyay 5 gabar ah ee ku sugan baadiyaha Sweden ayaa hadda qaarkood wadamadooda u laabteen, halka kuwa kalena ay aad ula yaabeen, isla markaana ay fajac iyo amakaag iyo yaab ay ku noqotay dhacdadan. Cali ayaa la ogaaday inuu leeyahay xaas, isla markaana 3 sano ka hor uu ku guursaday magaalada Sweden, qoysaarna uu ka yahay xayawaanadaas. Hantida iyo lacagta uu sheeganaya Cali ay tahay mid been ah. Hadda ayuu Cali dhaqaale abuur yahay, maadaama gabdhaha oo dhan dhaqaalahaasi ay ku soo raaceen oo aysan weynin rag kale ay guursadaan, maadaama ay ku nool yihiin wadamo qani ah. Yurub iyo Ameerika ayay ka kala yimaadeen, laakiin markastoo dhuunta ku wado, ogow waxaad u nugushahay inaad godadka qaar ku dhacdo. Beentuna ma aha mid dhammaystiran, intay taagan tahay xaqiiqada runta waa midda ugu wanaagsan ee dadka oo dhan ay ku qancaan. Runtu waa mid aan waxba ka dhibeen, beentuse waa mid aanan waarin. Cali waxa uu noqday beenaalihii ugu beenta badnaa tan social media 2022 ee qoonda gabdhaha ku soo xerogeliyay lacag badan. Laakiin maanta ayay soo beenowday, isla markaana gabdhihii oo dhan ay aad uga niyad jabeen kana laabteen. Cali waa xaas leh, xaaskiisa ayaa arrintii mar dambe ogaatay, durbana ku xanaaqday. Hadda Cali asigii xaaskiisa ayay sheekadu ka taagan tahay oo waxay leedahay ifur hadiiba intaan gabdhaha aad isku keentay. Ayadiina waxa uu sheegay ayuu garan laayahay, maadaama gabdhaha oo been ku soo xerogeliyay ayaga qaarkoodna dhuun lacageed ay wade. Hadda sheekadii oo dhan ayaa ku soo dhamaatay shalay iyo isbuucyadii hore, been oo aan meel dheer gaarin. Si kastoo ay beentu u tahay been, runta ayaa ka daba socota oo xaqiiqo ah. Sheekadiisana waxay ku soo dhamaatay mid mala awaal ah oo qiyaali ah. Fadlan daawada nagu soo biir. Haddii baad intaan nala joogtay, subscribe iyo like waa noo muhiim. Ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aan markasto xogta iyo xaqiiqooyinka dhacdooyinka social media in kula wadaagno, sida xogtan Cali oo kale, beenaalihii ku soo xerogeliyay gabdhaha Soomaalida.